meeshaan sida idinkaga muuqato waa meel in lagu nasto oo lagu socdo, banooni lagu ciyaaro, sawiro lagu galo, loogu talagalay magaalo kastana inay yeelato bay xaq u leedahay. dadka magaalada degan xaq waxay u leeyihiin gobolka ay degan yihiin ama degmadii degan yihiin meel saan oo kala ah. heer waliba waxa la gaarsiiyay xaafad walba inay yeelato meel saan oo kala ah oo lagu socdo, kadibna banooni lagu ciyaaro, sawiro lagu galo. muqdisho marka waxaa loo aqoon jiray beerta nasashada, darjiimaha oo lagu nasto, baak mar dambe dad iska dhahay way jiraan, laakiin darjiimooyin loo aqoon jiray. aawo darjiimooyinkii gobolka Banaadir, aawo darjiimooyinkii xaafadihii caanka ahaa ee magaalada Muqdisho ku yaalay. waxaasoo dhan waa la gatay, waa laga maarmay la dhahay. ka war firi la 3 milyan 4 milyan oo qof oo meel degan inay ka maarmaan ay dawladda qorto, waa laga maarmay. ganacsato la siiyo aqliga caadiga ah uu diidaya meel 4 milyan degan tahay in la dhaho meelahan oo kale ku nasalahaayeen, waa laga maarmay. ganacsatana laga iibiyo. dawladda Xasan Sheekh tantii ka horeysa sameysay. maantana canshuur uu leeyahay waa aruurina. canshuurta markay soo xarooto dawladda way ka maarmatay marka hadii la dhaho war jeeb lagu shubto. dawladnimada waxay ka bilaabataa meeshaan oo kale inaa qofka u sameysid markuu shaqada ka imaado, markuu waxbarashada ka imaado, meel uu ku lugeeyo, uu ku nasto, dhirta in lagu abuuro, geedo lagu abuuro, coos la saaro. gobolka Banaadir canshuurta dadka laga qaadayo meeshaas lagu qurxiyo. laakiin haddii la dhaho dawladda way ka maarmatay wax darjiime ah, dadkaana uma baahna inay nastaan. dadka Muqdisho degan 4 milyan uma baahna meel ay ku laga baxsadaan. gurigooda ku jirayaan ama darjiinka banaankiisa fariisanaya gurigiisa hortiisa. macnaha dadkan uma diyaarsana waaye. Muqdisho marka madaxweynaha waxaan ka sugaynaa inuu dhaho Muqdisho meel wax lagu aqrista ma u baahna, dawladda way ka maarmatay. muqdisho tiyaatar iyo meel fan lagu soo bandhigo iyo maaragtay muxuu ahaay waqti dadka ay ku qaataan ma u baahna. muqdisho marka dambe waxa imaanaysa xeebta dhan ee dadka ay maaragtay ku raaxaysanayaan liido in la dhaho waa laga maarmayba, qof xeebtan ku dabaalanaya ma jiro, kadibna la iibiyo. inkastoo hadirtan xeebta lagu dhawaadaba oo guryaha oo maaragtay la leeyahay waa hoteelo xeebta la saaro, la rabo xeebta in laga sakiyo biyihii qarkiisi baa guryo laga dhisay, darbi lagu wareegsaday. waliba asagii oo ninkii ganacsadaha laga gaday inuu meel qalada dhistay, haddana dadka masaakiinta ahay maaragtay jalaatada iyo teendhooyinkii yarkaa watay oo wuxuu leeyahay ani iyo badda lama dhexey karo, oo meeshii ka horreysay xataa u sii diidaya. macnaha asaga meeshuu dhistaaba sharci darra in lagu xisaabtamay ahayd, haddana dadkii kaleeto wuxuu leeyahay horteeda lama istaagi karo, lama fariisan karo. marka meeshaan waxaa ku jira marka dawladda Soomaaliya iyo dadka maamulaya dawladda maaragtay gacanta ku haya inay dhahaan wasaaradihii iyo xarumihii dawladda waa laga maarmay, inay dhahaan darjiimooyinkii gobolka Banaadir waa laga maarmay. taas waxay cadeynaysaa dadka meeshaan ku nool, Muqdisho ku nool, dad bil aadana ma ahan. waa dad ama geed inay saarnaadaan gurigooda dhexdooda ah, ama qolkooda ay ku jiraan, ama ay shaqeeyaan. ma u baahnaba meel ay baaskiil ku wadaan, meel ay ku ordaan, meel ay ku jimacsadaan, meel ay ku nastaan, meel ay hawo fresh ku soo qaataan. ma u baahna dadkan. dad cawaana miyaa marka dadkan. magaalada Muqdisho waxay u baahan tahay darjiimo noocan oo kale. meeshan hadda ku dhex socdaani waa darjiimooyin, waa barxad, waa isku dhex taalo, banooni ku ciyaari kartaa. hadda meesha ku socdo kale waa ku socon kartaa. dawladda leh marka dawladda dhiste dhul iska weynaada waay. marka waliba ugaartiba dhinac kale maaragtay ugaarta dadka cunaynin dhirtaan bay ku dhex jirtaa. ugaarta marka waxaa loo sameeyay xataa inay magaalada dadka kula noolaan karto ayadoo loo dhaafay meel seera ah, dadkana ay ku dhex lugayn karaan. laakiin ugaarta dadka aan cunin ku jirta meeshaan sida sagaarada, deerada, dabataagta waxaas ku jiraan duurkan. hadda marka ag maraysid waa arki kartaa, inkastoo hadda maanta markaan soconaya aan arkin. maxaa meeshaan yaala marka? meeshaan waxaa yaala dawlad dadkooda intay canshuur ka qaaday
waxbarasho siis caafimaad siis kadibna meelihii ay ku jimicsan lahaayeen ee naftooda ma aragtay ku dhisi lahaayeen oo ma aragtay muxuu ahaa jirkooda ay ku dhisi lahaayeen ay loo sameeyay dowladnimada lagu sheegayo waa wax dadkoo dhan laga qaaday laguna sameeyay wax dadkoo dhan dan u ah laakiin Soomaaliya waxa ka jirto maamada masaakiinta ah ee laamiga fadhiso in lacag laga qaado kadibna ilmaheeda waxbarasho loo siinin wada loo dhisin baabuur xabada aan karin iyo mushaar qaaliya lagu siiyo nin dibadda ka imaaday meel ay ka jirtaan Soomaaliya ahan ma jirto waxa laga qaadaa maamada jidka fadhisa lacagta waxaana la siiyaa dad ladan hadda Soomaaliya u fiirso musuqmaasuqa ugu badan madaxweynaha Soomaaliya sameynaya wuxuu leeyahay konton la taliyo leeyahay oo kiiba $5,000 oo qaato la taliyaha madaxweynaha bal u fiirso bil kasta mid baa la magacaabaa waa mushaarsiin aana ku jirin dastuurka because wuxuu kala talinayo ma jira la taliyaasha qaar shaqadooda iska daay hay-adaha la tali lahaayeen xataa ma abuurna xafiis ma leh dibaddu iska aadaya reerihiisa buu la joogaa 5,000 baa usoo dhacaysa la taliyaha madaxweynaha ma aragtay muxuu ahaa waxyaabaha weliga maqlin ba hadda Google-ka gal la taliyaasha madaxweynaha soo fiiri marka meeshan waxa ka jiro musuqmaasuq oo madaxweynihii sameynayo nin baa u imaanaya shaqo iyo abuur boodhaha shaqo ma hayo wasaaradihii shaqo ma jirto laakiin la taliyaa ka dhiga konton la taliyo madaxweynaha ah iyo konton la taliyo ra'iisul wasaaraha marka waa boqolkaas shan waxa ku dhufataa marka $5,000 ma inta xisaabay ku soo baxayso meeqa cunuga iskuul ku aadi kartid meeqa cunuga waxbarasho ku aadi kartid meeqa cunug ayaa caafimaad lagu siin karay waa nimanka hadda mushaarka dawladda canshuur firi Soomaaliya waa wadanka kaliya $1 billion ah oo lagu siiyo kaalmo kala bar 500 milyan 500 milyan gobolka Banaadir ee ka soo xarooto takadeeda iyo airportkeeda lagu bixiyo mushaar adduunyada wadan dhaqaalaha soo gala 100% mushaar ku bixiyo ma jiro waxay ahayd in kaabayaal lagu dhiso in wadooyin lagu dhiso in caafimaad lagu dhiso in waxbarasho lagu sameeyo macnaha say iga dhici kartaa $1 billion waa 1 milyan waaye 1 milyan hada af Soomaali kugu sheego in mushaar kaliya loo qaato ay rag ay maaragtay ay reerahooda u dirsadaan waliba mushaar qurbaha loo soo diray inta badan dadka dawladda u shaqeeya 80% qurbaha ka imaadeen mushaar lacag laga soo aruurinayo maamada dhulka jiifto ee laamiga waratada ku ah mushaar 5,000 ahna laga siinayo nin qurba joog ah oo bangiyada lacag u yaalaan oo ilmihiisa waxbarasho haystaan macnaha dadka Soomaaliyeed waxay fahmi la yihiin dhibaatada meesha ka haysato dhibaatada waxay ka haysataa in lacagta laga qaado qofka ugu liitay Soomaaliga ah ee xaraashlaha ah ee miiska gadayo ee biyaha iyo caanaha iyo wadada la fadhiso kadibna mushaar ahaan loo siiyo qof qurbaha ka yimid oo ladan ilmihiisina qurbaha ku maqan yihiin hadda u fiirso dadka madaxda dhan ilmooda qurbaha ku maqan yihiin ayakiya wadankii imaadeen wadanka maxay u imaadeen marka lacagta 5,000 meesho u imaaneen waxay u imaadeen in xasaanad la siiyo xasaanadaasna ay ugu amar taagleeyaan dadka masaakiinta ah ee localka ah magaalada xataa isku baahi ma aha firi magaalada Muqdisho jooga wuxuu rabaa inuu wato saacada iyo fanaanada iyo kabaha ka soo baxay Mareykanka okay lacagta uu ku gadanaya marka Mareykanka lama imaano UK-na kala ma imaanin Yurubna kala ma imaanin ee wuxuu rabaa lacagta laga qaaday maamada jidka fadhiso ee masaakiinta ah inuu ku labisto kadibna baabuur aan xabada karin oo ku wato marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga intay fakaraan inay dhahansaan ma qabato $1 billion in mushaar loo qaato oo waliba agaasimayaal waa la gartay oo waxay qabanayaan jirin laakiin ku magacaaban xafiis fadhiyo laakiin la taliyayaasha kumaanka $1,000 qaadanaya ee boqolaalka ah ee loo baahneen madaxweynaha markuu leeyahay darjiimooyinka looma baahno madaxweyne waxa ku leenahay la taliyayaasha beenta ay mushaar qaadashada looma baahno dawladda Soomaaliya way ka maarantaa annakana waa ka maaranaa jooji la taliyayaasha beenta ah mushaarkooda dhin mushaar dhimis ku samay sababtoo ah ayakaa laga maarmaa ayakaa loo baahneen ayakaa waxay hayaan shaqo
أنا ودنك وح معنا وفدين لكن لعقت أيك أكدنتي أو عاش أيك هذا سيسيد dadkan ugu sameey meel darjiimooyin ah ay ku nastaan ay ku socdaan ciyaalka wax baranaya ay ku alamiiteeyaan maskaxdooda xataa markaas wax barashadooda maaragtay ay kororto dadka caafimaadka maaragtay darada heesana ay exercise ku sameeyaan madaxweyne waxa loo baahneen la taliyayaasha naas nuujinta ah ayaa loo baahneen laakiin dadkan waxay u baahan yihiin xarumihii ay dawladda lahayd darjiimooyinka ah dhaxday looma baahno dadkan way u baahan yihiin soo celi waa in dadka Soomaaliyeed u soo celisaa dadka aasiisa darjiimooyinka ee daaraha ka dhistay waa qalad waa sharci darro dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir degan waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan meel ay ku nafisaan meel ay ku socdaan meel ay ku dareemaan nolosha macaankeeda ee hawo fiican ay ku soo qaataan ayakii caruurtooda iyo xaasaskooda waxay u baahan yihiin meel markay shaqada fasaxa ka yihiin ay ku soo warwareegaan laakiin adiga wax kasta waxa tiri looma baahna dawladay maxaa loo baahneen